barnaamijkan soo socda waxaa bixiyey saaxiibada iyo howlwadeennada Joyce Meyer mashruuceeda. tan koowaad markaan leeyahay ku raaxayso nolol maalmeedka xoog saariddu waa maalin walba. maaha maalinta lacag bixinta ama fasaxa ama dhar cusub ama xaflad aad aaday. waa maalin walba oo caadi ah. mararka qaar isniin talaado arbaco khamiis jimco wadista gaariga weel dhaqida caws jarid cawska wuu baxayaa haddana waad jaraysaa mar kale waad dhaqaysaa weelasha waad xareynaysaa carruurta soo bixinaysa waa wasaqaynaysaa haddana waad samaynaysaa meeqa fahansan waxaan ka hadlay. haddaba meeqa idin ka mid ah mararka qaar ku daalay inay wada sameeyaan samee fiiri arinku waa sidan waad samayn doontaa kuley. maxaan ka wadaa waxaan isku dayayaa inaan macquul noqdo saaka waxaan aaminsanahay in Bible-ku runtii inuu yahay macquul. maxay tahay in laga cabsado wax lagana murugoodo waxyaalo badan oo samayn doontid maalin kasta noloshaada ah. waxaad tiraahdaa waxba kama qaban karo dareenkayga laakiin waxbaad ka qaban kartaa fikirkaaga hadalkaaga waxbaad ka qaban kartaa dabeecadaada. taasina waa waxaan ka hadli doonaa maanta sidaan u fikirno sidaan u hadalno dabeecadeena waxa gudaheena ka dhacaya. tan waa tusaale wanaagsan waan ogahay inay dadku noloshooda ku dabaqayeen halkan xalay laakiin kaaliyahayga maamulka iyo ninkeeda Mike way nala safraan markaan samaynayno shirkeena. waxay u soo fadhiday waxbarideeda 35 sano. waxay qabtaa fikirkan wax walbood dhahdo waan samayn waxaan rajayn lahaa in qof walba sidaa ahaado laakiin wuxuu ku mashquushaa fariin walba oo ay maqasho inay ku dabaqdo nolosheeda. ha noqonin qofkaas oo maqla ereyga kadibna guriga taga oo aan ku dhaqmin taas. haddaad samaysid taas waxaad khasaarisay waqtigaaga waayo maaha kuwa maqla kuwa helo nolosha wanaagsan ee Ilaah la rabo waa kuwa sameeya. haddaan maqalno oo aanan samaynin Bible-ku wuxuuna leeyahay nafteenaan qiyaamaynay inagoo sabab uga dhigayno wax lidi ku ah runta. waad igu raaci kartaa in waxaan sheegay run tahay laakiin haddaadan gurigaaga tagin oo aadan ku dhaqmin noloshaada kadib runta waad ku khasaarisay waqtigaaga halkan. runtii waad ku khasaarisay waqtigaaga halkan. kuwani waa waxaad ku samaysid dabeecad ahaan. waxay tiri saaka markaan toosay waxaan ku fikiray maxaa aanan ka helin saaka waxayna ka fikirtay waxay tiri ma jecli inaan marsado make-upkayga. waxaa jira waxyaabo gaar ah oo anagoo dhan aanan waxaan ka wadaa caadi ahaan ka helin. waxay ku fikirtay inay ku dhaqmi doonto cashirkii xale waxaan ka dhigi doonaa mid xiiso leh. kadib waxay ku fikirtay maya wax walba ma laha xiiso waa inaan barto sidaan uga heli lahaa maalin walba waxyaalaha caadiga ah. hadda waxay habeysay dabeecaddeeda kuma samayn doono tan dabeecad xun waan ka helayaa samaynteeda tan. waxaad u baahantahay inaad samaysid waa inaad qaadisid dabeecad hagaajiyahaaga yar meel walboo tegaysid. ila socda aniga waan ku fiicanahay hagaajinta dabeecadaha. haddaan wax kala jirin wado mar walba qalabkaaga yar telefoonkaaga gasho dhagahaaga oo aan kula hadlo maalintoo dhan waxaad lahaan doontaa dabeecad wanaagsan iyo aamin. dadoo waxaan lahaa dabeecad xun markuu Ilaah gacantaygu dhigay. aad bay u fiican tahay inaan awoodo inayna i xukumin dabeecaddeeda oo aan xukumo iyada. dabeecaddaada waa waxaad adiga leedahay. haddaad diidid inaad lahaato mid xun qofna kuguma qasbi karo. mid ka mida waan iloobay magaciisa hadda mid ka mida nimankii sanooyin badan ku qaatay xabsiga oo Hitler dhisay wuxuu yiri xabsiyadan wax walba way iga qaadan karaan oo aan ka ahayn dabeecaddeeda waana diiday inaan lahaado mid xun. miyaanu taasi xoog badnayn? ma og tahay inaad diidi kartid inaad lahaatid dabeecad xun taasoo bedeli doonto noloshaada. hadda waxaan runtii ka helin waa sugitaanka. aad ugama helo. aniga waxaan ahay qof waxqabad waxaana jeclahay inay maalinteyda qorshaysnaato inaan wax ka tago oo wax kale u tago oo wax kale u tago. ma jecli inaan daaho markaan meel tegayo mana jecli inaan dhaqsado. taas macnaheedu waa kaamilnimo aan lahayn. hadda waxaan bartay
inaan ka helo sugitaanka waxay la mid tahay ciyaar la ciyaaraysa shaydaanka waa kaa guulaysan igama xanaajin kartid halkan ayaan ku raaxaysanayaa waxaan haysanayaa dabeecad wanaagsan hadda waxaan baranaynaa inaan si caadi ugu raaxaysano nolol maalmeedka maxaa dhici lahaa haddii aad ka fikirtid bisha oo dhan oo aadan ka cabsan hal wax oo samaysay oo aadan ka caban hal wax oo samaysay oo aadan helin fikir xun erey xun dabeecad xun oo aan ahayn hal wax oo aad samaysid intee hagaajin lahayd noloshaada aday ku jirtaa had kaama caawin karo fikirkaaga waad awooddaa laakiin weligood kumay fikirin inaad awoodid waa sababtuu ilaah idinkeena maanta waxba kama qaban karna dareenkeena ma ogtahay wax aniga mar walba ma caawin karo dareenkayga laakiin uma baahni inaan ku dhaqmo dareenkayga taasi waa waxaan baranayno haddaba waxaan haysanaa xorriyad ilama aha inaan wax badan ka maqalnay tan waxaan go'aansaday inaan wax badan arrinkan ka maqalno kiniisadda ilaahay wuxuu nala abuuray xorriyad ma nihin robotyo naguma qasbaayo wax walboon samayn lahayn xitaa markaan ku tiirsannahay ilaah caawintiisa weli waxaan haysanaa qayb weli waa inaan go'aan gaarno waxaan idin hordhigay nolol iyo geeri nolosha dooro adii farcankaaguba aad noolaa taane yeshuuca wuxuu yidhi siday ii tahay sameeye waxaad rabtaan laakiin anigii reerkayga waxaanu u adeegi doonaa rabbiga waxaad u baahan tahay inaad ogeysiisid dareenkaaga dareenow dareen sidaad rabtid laakiin tani waa waxaan samayn doono runtii meeqaa igu raacsan inaan ku noolnahay sida aan dareemayno waad og tahay dareenkaagu waa xumad qaar ayaad helaysaa markaadan rabin kuwa kalena ma helaysid markii aad rabi lahayd waa adigoo yidhi kiniisadda waan idin caawinayaa oo markii maalintii la gaarayna aanan rabin inaad caawiso dareennada qasab maaha inay xun yihiin ama fiican yihiin waa lahaan kartaa kuwo fiican iyo kuwo xun laakiin waa inayna noo noqonin hoggaamiye iyo hage waxaa jira maalmo badan xataa markaan samaynayn tan waxaan ku socdaa dareenkayga oo leeyahay ma baxaayo waxaan haystaa dad kaloo wacdin kara waxaan dhihi lahaa maxaa adiga u tegaynin ma fiicnin maanta ma sameeya taas ee waan tagaa mar walba waan muuqdaa mar walba telefishinka ayaan ka muuqdaa maalin walba oo daartid ila soco ha ka fakarin maalmaha qaar inaan joogo maalmana aan joogin waxaan u baahannahay inaan ahaano isku mid maanta waxaan ka hadlaynaa sida maskaxdaada iyo afkaaga iyo dabeecaddaada u saameeyaan raaxada noloshaada waxaan idiin sheegayaa inaad farxaddiina kor u qaadi kartaan hadda arrinka labaad oo aan raba inaan ka hadlo waa jidka keliya oo aan ku samayn karno taas waa haddaan baranno inaan wax walba u samaynayno ilaah wax walba waxaan u samaynaa inay tahay shaqada ilaah xitaa marsashada makeupkaaga ilaahow waxaan tan u marsaday inaan kuu qurxanaado maanta wax walboon sameeyo i aamin waxaad ku faraxsan tahay inaan makeup marsada maanta waadna ku faraxsan tahay inaan shallaysto timaha runtii waad ku faraxsan tahay inaan waqti dheer iska shaqeeyey maanta waayo haddii kale ma quruxsanaan lahayn waxaan ahay shakhsi ahaan waan dareemaa adiga ku feker waxaad rabto waxaan rumaysanahay masiixiin ahaan meel kasta oo aan tagno waa inaan u muuqanno habka ugu fiican ee macquul ah maxaa yeelay waxayna leh ilaah aamiin haddaba wax walba oon samayn karno waxaan u samaynaa ilaah dartii sidaan iri xalay xitaa nadiifinta gurigaaga jaridda cawska iyo dhaqidda gaariga samaynta waxyaalaha noocaas ah waxaan u wada samaynaa sidii shuqulka ilaah waadoo yidhi ilaahow maqsuud ayaan ku ahay waxaaga waana ka taxadari doonaa ma og tahay in lahaanshada qayb ay ka tahay ka taxadirid waxaan idhi wax ka lahaashada qayb waa ka taxadarid haygu caajisina saaka haye kuwani waa 2 aayadood oo ku jira Colossae oo tilmaantan si fiican u buuxinaya Colossae 3:17 wax walba oo samaysa
waxay tahayba hadal ama ficil ku samee magaca Rabbi Ciise iyo inaad ku xirnaato shakhsiyadiisa oo Ilaaha Aabbaha uga mahadnaqdo isaga. wax walba uma aadna oo kaliya kiniisadda Ilaah ee wax walba waxaan u samaynaa Ilaah. haddii kale xitaa kuma heesi karno heesta Ciise waxaad tahay udub dhexaad. waa inaan joojinaa heesaha haddaanan ku dhaqmaynin waxyaalahaas nolosheena. aamiin. Kolosey 3:23 wax walba oo ay tahay shaqadaada ka samee qalbiga iyo nafta sidii wax loo samaynayo Rabbiga oo aan loo samaynin dad. hadda qira inaan ku saxanahay tan wax walba oo aan samaynayno waa inaan u samaynaa Rabbiga. waan saxanahay waayo ereyga Ilaah ayaa i xoojinaya. waxa ugu dambeeya waa ku raaxayso noloshaada. tan aad haysatid hadda ma aha tan aad rajaynayso inaad hesho mustaqbalka. ma aha waan ku raaxaysan doonaa nafsadayda markii waan farxi doonaa markii runtii waan farxi doonaa markii waan farxi doonaa markay dhammaato waan farxi doonaa markay bilaabato. ka waran haddaa farxdi hadda? qof ma jeclaan lahaa inuu maanta ku raaxaysto ama waxaad rabtaa inaad burburisid maanta adigoo ka fikiraya sidaa u farxi lahayd mar. waxaan ayadan ka helay wacdiyihii waxba maana helin. waxaan hubaa in Ilaah igu hoggaamiyey laakiin igu hoggaamiyey wacdiyihii 6:9 waxaa ka wanaagsan indhaha aragtidooda waxaa ka wanaagsan indhaha aragtida ku qanacsanaanta waxa qofka haysto intuu rabi lahaa damac wareega. waan jeclahay aayadaas. wuxuu leeyahay waxa wanaagsan inaad ku faraxsanaato waxa ku hor yaalla hadda intaad iska fadhidid oo haysatid damacyadaas oo ah kuwaad rajaynaysa inaad heshid maalin adigoon ku raaxaysanin waxaad haysatid hadda. marka ilmahaagu jiro 2 ku farax 2 jirka oo ha rajayni inuu jiro 3. waan farxi doonaa markii ilmaha bilaabo iskuulka. waan farxi doonaa markuu iskuulka ka baxo. waan ku daalinaa iskuulka u kaxeeyo maalin walba. waan farxi doonaa markii ilmahan galaan kolleejo. waan ku daala bixinta biilka. waan farxi doonaa markii waan farxaa. hadda mid walba oo ka mida waxyaalaha aad ku farxi doontid mar dambe waa waxaad tabi doontid. aamin markaad duqoodo waxaad ku fikiri doontaa waxaan jeclaan lahaa inaan waqti la qaadan lahaa reerkayga. waxaan jeclaan lahaa inaan waqti qaadan lahaa si aan ugu raaxaysto guriga. haddaba 3 wax ku raaxaysa nolol maalmeedka. ku raaxaysa noloshaada. wax walba u samee adigoo u shaqaynaya Ilaah. hadda waxaan leenahay runtii 2 nolol. waxaan leenahay nolol dibadda ah iyo nolol gudaha ah. waxaan leenahay nolosha aan halkan ku noolnahay waxaan sameynaa waxa aan leenahay xaalado waxaana jira waji aan tusno qof kasta. laakiin waxaan kaloo leenahay nolol dhan waana nolosheena gudaha. waana waxa ka socda gudaheena. fiiro waxa yaabka leh waa adigoo u dhoola caddayn kara qof kuna fikiraya runtii kuma dulqaadan karo. iiga tag si dhaqso ah maxaa yeelay kuma dulqaadan karo. adigoo dhoola caddaynaysid oo sii dhehaysid Rabbiga ammaan. waxaan idinku jeclahay jacaylka Rabbiga. tani waa waxa loogu yeero 2 wajiilanimo iyo been. hadda nolosheena runta ah nolosha xaqiiqdii runta ah waa nagu jirtaa. teena runta ahna waa nagu jirtaa. boqortooyada Ilaah waa nagu dhex jirtaa. Ilaah wuu nagu dhex nool yahay. waayo taasi waa meesha ugu horeysa oo uu rabo inuu wax walba ka bedelo oo wax walba ka dhigo cusayb. isku dayidda in dibadda laga bedelo gudaha waa waxtar la'aan. taasi waa sharciga oo la raaco. taasi waa xeerar iyo nidaamyo. waxyaalahan layga sugayo inaan sameeyo ima bedeli karaan. laakiin Bible-ku wuxuu leeyahay ha u ekaanina dadka ifkaan laakiin ku cusboonaada waxa ay tahay cusboonaanta dhammaan maankiina. hadda waxa ugu horeeya oo rumaystuhu samaynayo markay aqbalaan Masiixa. waxa ugu horeeya oo uu samaynayo waa inuu bartaa sida Ilaah u fakaro.
Rooman 12 haddana waxay leedahay waan bedelmi doonaa. maaha turjumaad. ma idin fahmin miyaa? marka lagu turjumo halkaa baad joogtaa isla markiiba. laakiin bedelnaantu waxay qaadataa waqti dheer. waa hab u dhaca si tartiib ah. uma fikir si dhammaystiran, laakiin waxaan u fikiraa si ka fiican sidii hore. wax kale ayaan idin sheegayaa oo Ilaah ii qabtay. waan garanayaa hadda markaan ku fikiray fikir xun. waa laga yaabaa inaan waqti yar haysto, laakiin maaha waqti dheer. waana garanayaa in wax qaldan yihiin. waa inaan baranaa inaan fiiro gaar ah u yeelano tan. way adag tahay in la sharxo. waan samaynayaa sidan oo kale. waxyaalo ayaa qaldan. ma dareemaysid nabad, ma dareemaysid sida adigoo farxaddii lumiye. ma aqaan sababtaan u lumiye. waxa ugu horreeya oo samaynaysa markaa lumisay farxaddaada waa baar fikirkaaga. midda kale oo aad samaynaysa markaa lumisay farxaddaada waa inaad ka fikirtid wixii aad ku hadlaysay. qof idinka mida miyaa weli dhib ku qaba afkiisa? afku waa sida xayawaanka duurjoogta. Baibalku wuxuu leeyahay Yacquub qofna ma rabayn kara carabka. sida kaliya oo ay ku dhici karto waa caawinaad weyn oo ka timaada ruuxa quduuska si joogta mar walba. kama cudurdaaranayo inaan idin baro fariin kale maanta oo ah fikirka iyo afka iyo dabeecadda. waayo waxaan u baahannahay inaan maqalno 2 ama 3 mar bil kasta haddaan rabno inaan sii wadno. waxaan haysanaa fikirro aad u badan oo ku wareegaya madaxeenna. Baibalkana wuxuuna barayaa inaan iska tuurno kuwa xun, kuwa fiicanna aan haysanaa. taasi waa noloshaada saxda. maaha nolosha kugu wareegsan. maaha xaaladaheenna kuwa naga dhiga farxad laawe. waa sidaan ugu fikirno xaaladeenna. waa sidaan uga hadalno xaaladeenna. maaha runtii dadka noloshana la wadaago kuwa naga dhiga farxad laawe. waan ogahay inay jiraan dad badan oo idin dhibaayo. ha ku fikirin inaan qabin kuwaas. waan qabaa. waan kuu sheegi karaa tan. in badan oo aan ka fikiro waxa qaldan oo dadka nolosha ila qaybsaday igu dhibaan, way igu adkaanaysaa inaan jeclaado oo aan ka farxiyo iyaga. isku day inaad qaadatid gobol warqad ah. laga yaabay xaaskaaga ama mid ka mid ah carruurtaada. qof walba oo jooga hareerahaaga oo noqday sida qodax jirkaaga ku jirto. saddexdaada, hooyada, aabbaha, dariskaaga, qofku yahayba. ha fadhinin oo ha iska dhigin dembilaawe oo jecel dadka oo dhan. waan ogahay inaadan ahayn. waxaad tahay sidii gobol warqad ah. soo qaado oo sii wad. hoos ku qor waxa ay ku qaldan yihiin. kadibna waxa ku xiga halkan bilow inaad ka fikirtid wax walba oo ay ku saxnaan karaan. ma ahaan karto wax sidaa u adag. waan ka heli karaa qalad David xitaa isagoo u dhow dhammaystirnaan. kulligeena waan ognahay. ma og tahay haddaan ka fikiro waxyaalaha aan runtii ka wada dadow. David wuxuu dhaqaa weelasha, dharkuu dhaqaa. wuu uumiyaa dharkayga markaan gashto. haddaan dibadda u baxo waan u baahanahay isaga. hadda qaybta kale wuxuu wax badan cayaaraa golfka. wuxuu aad u fiirsadaa kubadda. naag ayaa Dave u timid markaan bug saxiixaynay asbuucii hore. waxay ku tiri, ninkayga wuu kaa helaa. adiga dartaa hadda wuxuu cayaaraa golf 3 mar asbuucii. laakiin haddaan u fiirsado waxyaalaha aan jeclayn, ma og tahay marmar dadka inay isku furaan hadday u fiirsadaan waxyaalaha ay jeclayn. Dave iyo aniga waxaan isqabnaa 48 sano. sababta kaliya oo ilaa aan waqti dheer iskula joogno waxa ay tahay inaan u fiirsan waxyaalaha aan jeclayn. waxaan kuu sheegi karaa macno ma leh qofkaad heshay. waxaa jiri doona waxyaalo labada dhinac kala hogaaminayo. may maqasheen waxaan iri macno ma leh qofkaad heshay. waxaa jiri doona waxyaalo labada dhinac kala hogaaminayo. waxaan ka wadaa waxaan ku dhibtoonaa carruurteena.
waa ogtihiin waxay leeyihiin shakhsiyaad kala duwan xagee ka timid suuragal maaha inaad aniga iga timid waxaad u egtaa qofkii yimid meel kale mana fahanno waad ogtihiin jiil kasta ilmaha waxay sameeyaan waxyaalo kala duwan mana aha waxaad samayn jirtay markaad yareed maad ogtahay taas waa laga yaabaa inaad ilowday inaad ilmahaaga ka sugaysid inay u sameeyaan sidaadii waayo ma samaynayaan wax walba uma samaysid sida waalidkaa u sameeyey aamiin waan xasuustaa markii saddexday fiicneed nagu xanaaqday David iyo aniga markaan soo gadana wala dhaqa waayo iyadu ma haysan wala dhaqe weelashan waad dhaqi kartaa uma baahnid wala dhaqe waa cajiib waxyaalaha naga caraysiinaya waayo maaha waxyaalaha aan u baranay uma baahnin inaan u fiirsano waxyaalaha ay ka mid yihiin cimilada waa inaad iska hubsataa intaadan ku xanaaqin qof samaynaya waxyaalo taasoo runtii dhibaato Bible-ka ah oo ahayn dhibaatada jiilka maxaa yeelay maaha waxaad caadi ahaan samaysid markaan ka fikiro waxyaalihii aan carruurteeda la soo maray oo dhan iyo xanaaqii aan wax ku tuuray iyo muranadii waad ogtihiin qolkaagaad galaysaa haddii aad gurigayga ku noolaanaysid qof ma yaqaana hadalladaas sax waad fahanteen haddaad ku noolaanaysid gurigayga waa inaad qolkaaga nadiifisaa iyo sidaa haddaba carruurtaydu way wada weynaadeen waxaan ayay u ahay 11 ilmo ilmahaygoo dhan waxay noqdeen kuwo wanaagsan kulligan waan isjecelnahay waxaan ku fikiray waqti badan ayaan ku lumiyey dagaal aan faa'iido lahayn ifahan ma ogtihiin waxa keena taas waan idiin sheegaya waxa keena diyaar ma u tihiin wuxuu ahaa kibir iyo dabeecad madax adag waxyaalo badan oo qalad ayay sameeyeen laakiin way korayeen macnaheedu maaha inaysan u baahnayn in la saxo laakiin uma baahnayn inaan u xanaaqsanaa 3 maalmood waxay sameeyeen ma ogtihiin intooda badan meesha ay ka yimaadeen dabeecaddeeda isla weynida in wax kasta loo sameeyo sidaan rabo ama waxba waa ogahay qofkiina ma lahaa taas laakiin qof hadduu u baahan yahay waa ku fasaxa qaado ku farax carruurtan mahadsanid Bible-ku wuxuu leeyahay naagta waa inay ku faraxdaan ninkeeda arag daqiiqadan erisidaa waan ogahay in qaarkiin ku fakaraaya hadduu ku qabi lahaa ninkaan isqabno kuma aadan faraxdeen hayaba mahmaadii 23:7 siduu qofka uga fakaro wadnihiisa waa siduu noqdo siduu wadnihiisa uga fakaro waa siduu yahay haddaba joogsa halkaas siduu uga fakaro wadnihiisa waa siduu yahay hadda aan fiirino aayad kale Roman 4:14 waan ogahay waana hubaa oo aaminsanahay inaan mid la ahay rabbiga inaan waxba xaaraan ahayn waxaa lagu tiriyaa xaaraan nijaasi iyo qurun sideedaba laakiin si kastaba waa ka xaaraan nijaasi iyo qurun kii ku fakara waa ka xaaraan isaga hadda Paulos wuxuu ka hadlayay arrimaha cunida hilibka loo bixiyay sanamyada dabcan waxaa jira waxyaalo aan loo baahnayn inaan sameeyno wuxuu halkan ka hadlayay arrin aad ugu weyneed masiixiyiintii waqtigaas ma cuni kartid hilib loo bixiyay sanamyada waayo waxay ku hoos jireen sharciga laakiin hadda waxay ku hoos jiraan nidaam taa ka duwan nidaamka nimcada Paulos wuxuu leeyahay fiiri waa laydinka xoreeyay dhammaan sharciyada xafladaha nalagama xoreeyin sharciyada anshaxa ilaah laakiin waxaa nagala xoreeyay sharciyada xafladaha ilaah haddaba Paulos wuxuu iyaga ku lahaa intaad ogtihiin in sanabku waxba ahayn sanabku ma dhaawici karo hilibka runtii xor baad u tihiin inaad cuntaan hilibka sidoo horeba u yiri hase ahaatee haddaad u malaynaysaa inuu xaaraan yahay idinka waa idinka xaaraan ee ha cunina hadda muxuu isaga ka hadlayay haddaa u malaynaysa inay wax qalad yihiin xitaa haddaysan ahayn way ku saameyn adiga iyo nidaamkaagoo dhan sidii isagoo qaldan waxaa kuu fiican inaadan samayn waayo haddaad samaysid waxaad rumaysan tahay inuu yahay qalad kadib waxaad dareemi doontaa xumaan oo kaa xadi doona farxaddaada iyo nabaddaada mar walba ma xukumi karno dareenkeena laakiin ilaah caawintiisa waan xukumi karnaa fikirkeena
maamulnaa waxaan sheegno oo horumarinaa dabeecad wanaagsan xataa xaaladda xun. taasi waa mid awood badan. hordhacan waxaa bixiyey saaxiibada iyo howlwadeennada Joyce Meyer mashruuceeda